idii salaam dhamaan asxaabteeda qiimaha iyo qadarinta mudan waxa idii hayaa 10 filim oo Bollywood ka caan ka ah laakiin si kolkoodii hore laga soo minguuriyay koonfur Hindiya filimaantaas oo ay keeneen actor weyn oo caan ka ah Bollywoodka waliba filimaantaas waxa weeyaan filimaan ay aad iyo aad Soomaalida u taqaan oo caan ah waxaana kamid ah filimaantaas filimka caanka ah ee Kick ee 2014 la matalay وفيلم كينج وحا مثلي سلمان خان فيلم كاسو فيلم دغال هيرو سو جيرو جعيل فيلم كاسو فيلم ادي اد بولوين وغاري कौन है कहां है सिर्फ उसका नाम पता है waxaa sheekada filimkan laga soo minguuriyay filimka caanka ah kiisa waxaana aktorka weyn ee Rafi Taj filimkaas oo filim box office ka guul weyn ka gaar laakiin Salman Khan ayaa Bollywood ka dhigay filimkaas sagaal singam waa filim oo Ajay Khan aktor ka ahayo filimkaas guul weyn gaaray laakiin filimkaas waxaa laga soo koobiyay aktoraha caanka filimkiisa Suuriya ee Singam 2010 guul weyn gaaray laakiin Bollywood ka ayaa filimkaas soo koobiyay مداسو فيلمان شرف قيمة يكوهرين لبد أكتر سوريا يا جديف كان وحانا كالنت سيديدا صوت غلاي فيلم كعان كاهرينا هي تري دلمي او لبد كونيو كودي لما تلي فيلم كان او لغسو من غوري فيلم شيكديسا koonfur Hindiya ay sameeyeen oo waliba filimkaasi koonfur Hindiya waxa matalay aktarkii matalay filimkan Bollywoodka laakiin se wuxuu kaga duwan yahay filimkan Bollywoodka waxa atoora ka ahay atooraha Saif Ali Khan ayaa kula jiray atoorihii kale waana filim aad iyo aad xiiso u leh qiimo wanaagsan toddobaad waxa ku jiro filimka Gajini 2008 lama talay filimkaasna waxa matalay atoora weyn ee Amir Khan ayaa filimkani aad iyo aad ugu baashaalay wuxuuna ahay filim aad u qiimo badan laakiin se filim waxa atoora ka ahay Amir Khan Gajninka koonfur Hindiyana waxa ka ahay atoora Suuriya laakiin se filimkani wax weyn kuma kala duwna waana filim la koobiyay oo kale filimka kaalinta lixaad soo galay waa Bulbulaya waxa 2007 matalay Akshay Kumar filimkaas oo noqday isna filim oo qisadiisa aad iyo aad looga helay laakiin markii hore waxa laga soo minguuriyay filim koonfur Hindiya waliba waxa laga keenay filmaanta Malayalam Tamil iyo Kanadiya oo sidoo kale wuxuuna noqday filim aad iyo aad loo jeclaaday sheekadiisa waana filim fiican Tamil akaan shanaad galay filimka due to many reasons including impeccable dialogue writing and impressive acting एक दिन के लिए सीएम बन के देखो बोलो क्या बोलते हो the movie kaasoo laga soo minguuriyay filimka 1999 laga soo minguuriyay oo filimkaas Montan Fan waxaana keenay filimkaas Saroj Arjun iyo Manisha Koirala number 4 filimka Satya oo 2002 la matalay waana filim kamid ah filimaanta jacaylka ee loogu jeclay Bollywoodka waxaana keenay filimkaas Rani Mukherjee iyo FIFA Kobrayo laga soo koobiyay oo la keenay 2000 waxa la yiraahdaa Life Beauty waxaana aktar ka ahaayeen filimkaasi atooraha caanka ah ee Arman Tuman iyo Sharilni filimka xiga waa filimka Dirisham kaalinta saddexaad ayuu ka galay filimkan Dirisham waxa matalay atooraha Ajay Khan iyo Tabu tirishada askariyada ku matalaysay filimkaas oo noqday filimaantii ugu sheekada wanaagsanay ee la keenay 2015 laakiin filimkaasi waxa laga soo minguuriyay filimka Mohanlal ee koonfur Hindiya isagoo waliba filimkaas guul fiican gaaray labaad waxa ku jiro Terenam oo 2003 la matalay Terenam waa filim aad iyo aad u qiso jacaylba ku dhamaaday waxaana keenay Salman Khan filimkan Salman Khan guul weyn ayuu u gaaray waana filimkii uu ku soo laba kacleeyay mar kale तो खुले हाथ से उनके कान के नीचे उनकी गर्दन पर एक करारा चमाड़ मारूंगा
laga soo minguuriyey ee 1999 la matalay waxaa la dhahaa Situ waxaana toora kacay atoora weyne Fikram filimkaas oo qiiro jacayl iyo qisaba lahay waxaana uu ka qaatay abaalmarin aad iyo aad u weyn. The number one position, here are some honorable mentions. Father IPS, mother IAS. Inka no choice, you have to say yes. You're right. कल्लू मुझको 90 मार्क्स ऐसे ये कापूस शीट के लिए सबूत है कि हम लोग एयरपोर्ट आए थे पूजा मुर्ते यहाँ पर आई ही नहीं డబ్బులు తీరా దీంట్లో ఏ ఒక్కరో పని ఇది కాదుగా రాథోడ్ విక్రమ్ రాథోడ్ వైజాగ్ వెళ్ళావా స్వప్నాన్ని కలుసుకున్నావా అవును కలుసుకున్నాను इस उम्र का प्यार क्या है केवल वासना ये शब्द पीढ़ियों से हर बाप दोहराता आ रहा है ये भूल भी पीढ़ियों से हर बेटा करता आ रहा है దొరికిందని చెప్పానే అది నాదే బుల్లెట్లు కూడా నా దగ్గర ఉంది मेरे पास सिर्फ पैसा है मुझे पैसा दे वैसे lambarka koowaad waxaa ku jiro Hira Fairy oo 2000 la matalay. Hira Fairy waxaa ku jiro Akshay Kumar, Sunil Shetty iyo Barish Rawal. filimkaas oo ahaa filim aad iyo aad u shactar badan Bollywood-kana aad iyo aad ay ugu nagaadeen qosolkiisa iyo dadweynaha Hindiya dadweynaha caalamka dhan ku nool. filimkaasi laakiinse waxaa laga soo minguuriyey filim koonfur Hindiya oo filimkaasi oo ahaa koonfur Hindiya laga keenay waxaana la yiraahdaa Ramji Rao speaking waxaana director-ka Rafikilal filimkaas oo ahaa filim aad iyo aad u qosol badan oo classic ka noqday koonfur Hindiya sidoo kale filimkan Hira Fairy waana classic wuxuuna gaaray guul aad iyo aad u weyn waxaana maanta idigu macsalaameynaa akhbaartani oo ah akhbaarteeni koowaad la soco akhbaaraadkeena dambe fadlan like subscribe iyo wax walbana